wadayaal kusoo dhawaada qaybta wakaalada ee qaybteeda telefishinka Baraarug TV idinko wararkayga kalena ka daalacaan kara qaybaha kale ee shabakadaha ee Baraarug News.net iyo qaybaha kale ee Facebook-yada iyo Twitter-da ee maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Solteelko oo isku beel yihiin ama isku qoys ka soo jeeda qoyska ama beesha uu Muuse Biixi Cabdi ee xilligan talada dalka Soomaaliland madaxweynaha ka ah ama garwadeenka u ah shacabka reer Soomaaliland ay maayarka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ay isku beel yihiin isla markaana maayarka Cabdiraxmaan Solteelko ayaa guriyo waaweyn iyo hanti fara badan oo ah cashuurihii dadka danyarta ahaa dhacay taas oo Muuse Biixi Cabdi guud ahaanba ay isku beel yihiin taasina ay sababtay inuu fuuqiyo waaweyn ka dhisto magaalada Hargeysa arimahan waa xoolihii ummadda oo dhacayo maayarka ay isku beesha yihiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ana xaqiiq oo dhab ah maanta in madaxweynaha oo guud ahaanba dhinaca wasaaradaha iyo hay'adaha dawladdiisa ee kuwa leh maaliyad dhaqaale u wada dhiibay beeshiisa waxa ay dhalinyar fara badan oo magacyo kala duwan iyo la kala baxay ururo ay ugu magacyeedaan jiidaley heego iyo qaar kale oo laftigoodu jira ay hantidii ummadda shacabka reer Soomaaliland iyaga oo kaga faa'iideysanaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo laftigiisu inta badan qaraabakiil ku shaqeynaya habka maamulkiisa iyo xilalka uu magacaabayo sida uu tisaayo qoyska kaliya ee beeshiisa ee Saamus waxa ay hantidii cashuurihii ummadda ee masaakiinta laga soo aruuriyay hooyooyinka iyagu fadhiya bacadka ee iibinaya tamaandhada iyo xabuubta ay ku dhisanayaan fooqa waxaana taas ku cadeynaysa xitaa hanti dhowraha waa Muuse Biixi beeshiisa mana jirto cid arimahani si toos ah xitaa xagga xisbiyada mucaaradka ay arimahan loo baahnaa in ay wax ka qabtaan ama ay ummadda u soo bandhigaan boobka qabiilaysan ee beesha maamulkii dalka iyo dawladnimadii Soomaaliland gacanta ugu jirta ay ugu takrifalayso daawaca maanta halista ah ee Soomaaliland waxa guud ahaanba dawladnimadii iyo hantidii iyo cashuurtii ummadda masaakiinta laga soo aruurinayay ay gacanta u gashay qoys biyaashaqa kuma lihin haba yaraatay wax naloo qabtayna ma jiro halka harag ma ku aragtaa waxa cad harag miye ma aragtaa waa adhigii arafadii hore dhintay ayaa xashiiskiisu yaala xashiiskiisi lama qaado lama xaadho looma yimaado biyo looma shubo wax leeyahay wax laga qabtaa ma jiro waxaan soo kormeernay bariishkii jajabka ka dambeeyay loo sameeyay oo isaguna 3 sano halka qabiya ka haba yaraatee wax laga qabtay aan jirin waxaan soo kormeernay aqalada ay sameysteen ay dhisteen maayirku iyo maayirku xogeenku migista cashuurta oo ka soo sheekeeyay ee qeyr sharciga ah ee runtii baarlamaanka oo ansixin ee aad moodid sida tuugada in ummadii looga qaadayo cashuurtaasi baarlamaanka ansixiyay ma jirto shirkad baa loo sameystay shirkadaasi shirkad wuxuu ahaa la geliyay maaha haba yaraatee muxuu ahaa tartan la geliyay maaha cid gooniya lagu naasduujinaya arinta marka database baro sameeyay leeyahay lacagta laga qaadayo ummadda waxa weeyaan lacag xaaraana haddaba lacagta xaaraantii halkay mareysay baan soo aragnay anagu maalmahan baan ku jirnay haba yaraan aan ku jirnay muxuu ahaa dabagalkeedii waxaan soo aragnay aqalada waaweyn labada aqal cadcad ee maayirku xigeenku uu midda ku jira midna imika farta laga qaaday maayirku xigeenka ayaa sameystay aqalka kale weyn imika qabyada ah aqalada maayirka kamid yahay weeyaan aqalkaasina dhammaan aqaladaas waa cashuurtii ummadda laga qaadayay cashuurtan imika dadka lagu kordhiyay sanadkii u dambeeyay dadka lagu kordhinayay waxa lagu sameeyay waxa laga sameystay aqalada waaweyn waxaanu soo bandhigaynaa haddaan nahay xisbiga wadani gobolka Maroodi Jeex documentary xildhibaanada golaha deegaanka ee Hargeysa markii hore markii meeshii yimaadeen sida nin kastaaba markii hore uu meeshii yimi iyo imika xaalkiisu sidoo yahay waxaanu soo bandhigi doonaa nin kastaaba hantida uu ka sameystay cashuuraha ummadda laga qaaday dawladda hoose service ay noo sameystaa ma jirto lacagtan la inaga qaadayo gibirka waa gibir weeyaan imka lacagtan la inaga qaadayo cashuurba maahe hantida ayaa laga sameysanayaa ummadda wixii garanaysa masaakiinta ahaa ee maanta xaalka ummaddu ilaahay og yahay waxaan u soo jeedinaynaa ummadda reer Hargeysa bal inay baraarugaan oo ay ogaadaan cashuurta ay bixiyaan halka ay ku dhacayso waxaan baaq dheer u soo jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne ololahaagii waxaad oran jirtay sharcigu ha sareeyo waxaanu leenahay madaxweyne waa in baaritaan lagu sameeyaa golaha deegaanka waxaanu haynaa
xildhibaanada qaarkood oo 20 block leh ayaanu xogta ku haynaa waxaanu soo bandhigi doonaa insha Allah bidilaahi kariim rabadaan gudaheeda inta block ee dhul ah ee waxaan ku ri caasimadda u dhow beeraha la qorsheeyay